aqoontu waa dalka lagu hogaaminayo in aqoonsiga caalamiga ku doonayno waxaan ballan qaadaynaa wax kasta oo horumar ah oo macaahidda iyo xuseeyo markisyada inaanu diyaar u nahay على شوق تخرجنا وللمجد تحركنا وهذا الحفل يجمعنا ليوم تحقق الحلم على شوق تخرجنا وللمجد تحركنا وهذا الحفل يجمعنا ليوم تحقق الحلم معد زيلة على وكن يسديد ديبو تأسيس كيسوها marka macadka la asaasayay ama xafladii ugu horeysay halkan imika waxa ka jooga Xaaji Axmed Miisaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala xifdiyo umrigiisana dheereeyo rag badan oo maalintii nagala qayb galay maanta ma noola waxa kamid ahaa Xaaji Daahir baa kamid ahaa waxa kamid ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Hussein Cilmi Ilaahay subhanahu wa ta'ala u naxariisto dad badan baa runtii tagay waqtigaas ilaa imika waxa ka baxay 14 lot baa ka baxay ardayda macadka ka baxday guud ahaan waa 954 arday ayaa macadka ka qalin jabiyay dufcaadka istaba yaalay 14 ka oo habla iyo inama isku jira sanadkan waxa ka baxaya oo ardayda halkan fadhida tiradoodu ay tahay 337 iyo 760 waa 100 ka arday ilaahay mahadi waxyaabihii macadka bariga aan furaynay aan ugu tala galnay ee aan niyeysnayn ilaahay wax badan buu suurta galiyay haday iskuulo hoose dhexe iyo sare macaahidda jaamacadaha madrasadaha quraanka intaba ay ka howlgalaan waxaan oran karaa masaajidda magaalada khudbada ugu badan ee khudbada ka akhrida waa dhalinyartii macadka soo baxday macaahid badan baa furantay oo magaalada laga furay macaahiddana ardaydii macadka ka soo baxday baa asaastay waxaan leeyahay hambaliyo ilaahayna barakeeyo dadweynaha maanta aan soo jeedinaya waxa weeye in ay nagala qayb galaan ardayda ka baxday macadka waxay diyaar u yihiin inay magaalooyinkii iyo tuulooyinkii ay ku noqdaan oo ay dadka wax baraan laakiin waxay u baahan yihiin garab gal bay u baahan yihiin in la garab galo in arday macalinkaasi wixii uu ku hawlgali lahaa de bulsho kastiba ama reer kastiba meel buu degan yahay magaalooyinka waaweyn ee gobolka uu ka kooban yahay dadkii salaadii iyo cibaadadii iyo akhlaaqdii iyo dhaqankii way ka dhinteen in la nooleeyaa loo baahan yahay waxaana nagu waajiba inaan u ducayno ardayda baxaysa alla jecelina annagoo macallimiino meel fadhina inuu inankaa soo qofkaa soo barnay naga hor hadlo aad baan u jeclay waliba macallimiintu xaasidiin ma لا يمتضي المجد من لم يركب الخطر ولا ينال العلا من قدم الحذر ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقض من إدراكها وطرا سلام عاطر وله أريج من الأعماق يعبق ياسمينا dhammaan waan wada mahadnaqaynaa ardayda halkaas soo fadhida wiilal iyo gabdhaba iyagana waxaan leeyahay uhaniukum وما بين الدرجتين 100 عام وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم macadka saylac oo ka mid ah macaahidda ku yaala gobolka awdal gaar ahaan degmada boorama wuxuu ku suntan yahay in uu soo saaro dad ka dhisan dhinaca diinta iyo akhlaaqiyaadka waxaan ballan qaadaynaa wax kasta oo horumar ah oo macaahidda iyo xuseeyo markisyada inaanu diyaar u nahay farxad ay loo tahay inay bayskooda hoose la dhisan yahay maantana jaamacad kastoo adduunka ka mid ah ay u fadhiisan karaan taasi tusaale u tahay xitaa cilmiga maadiga ah ee dalkeenna ka jira eenan islaamiga ahayn ilmaha waxaan ballan qaadi doonaa inaan bayska ka soo dhisno haddaanan bayska laga dhisinna lama tartami karo inanka bayskiisu dhisan yahay waa ka gobol ahaan baan sheegaya inaan maanta ka soo qayb galno xafladda qalinjabinta ardayda ka baxday macadkii saylac ee uu hogaaminaya xasan khayr dirin anigana runtii ardayda aw gacanta ka ayay ka mid yihiin carruurtaydu aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waan u mahad celinayaa idin ducaynaa insha allah
waxay idin rajaynaa mustaqbal aad u wanaagsan oo ifaya inaad dadaalka sii wadaan insha allah ood gaadhaan ilaa dee doctorate-ka ama doctornimada aad ku gaadhaan daraasaadka islaamiga ayaan ka rajaynaa aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa waxaad soo qaadeen tallaabo aad iyo aad u fiican juhdi baad soo bixiseen macadu zaylac diraasadiisu ma fududa waan ogahay macallin baan ka ahaa hal wiil oo ah kii inamada ugu sarreeyey muddadaa 3 sano jaamacadda dhigan doono in uu jaamacadda scholarshipka ama mixna daraasiyada uu qaadan doono sidaasaan ku bishaaraynaynaa waxaa kaloon bishaarada wiilagu maaha hablahana iyagana gabadha ugu sarreysay iyadana mixna daraasiya ayaan 3 sano ay joogto jaamacadda siinaynaa bishaaradaasna oo jaamacadda ay ka timiday 15 da'ood oo isku xigta ayaa macadkaasi waxa weeyaan uu culumtii shareecada waraabiyay inay tahay ayaad markaa fahmaysaa wax markaa runtii aad iyo aad loogu farxo weeyaan waxbarashadu dadka way bishaa way hagaajisaa waxay ka shaqaysaa akhlaaqdooda hagaajisaa waxay hagaajisaa cibaadaadkooda macadu saylac waxa la bilaabay waqti aad moodaysay da'yarta iyo bulshaduba inay ka haajireen cilmigii sharciga barashadiisa luuqadii carabiga laga haajiray oo masaajidda lagu barto ingiliis lagu daraaseeyo waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala cilmigii aad bixiseen eed gashateen ma khasaarin midhihiisii adduun iyo aakhiraba kuwii gurtaa allah idinka yeelo waxaana leeyahay ilaahay idinku anfaco cilmigaa barateen waxa barakada wataa waa diinta walaalayaal waa qur'aanka waa sunnada aynu ogaanno وللمجد تحركنا وهذا الحفل يجمعنا ليوم تحقق الحلم